بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. sheekh cabdirasaaq ilaahay ka cafiyo amaana badan uu sheegayo dib baa si loogu noqon taa markaan dhaafo xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wassalaam uu ku tilmaamaya daaqa طacma aliimaan waxaa dhadhamiyey ama xalaawat اliimaan laba xadiidoo صaxiixa xadiidku sheekhu akhriyay xadiidka anasa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wassalaam xalaawat اliimaan iimaanka macaankiisa waxaa dhadhamiyey saddex khaslo ninka laga helo. xadiidku waxa uu sheegayaa iimaanku inuu dhadhan leeyay dhadhankaasina inuu macaan yahay. axaadiid kaloo badanina waa tilmaamaysaa maalan xadiidka alcabaas bn cabdilmuطalib ee muslimka ku yaala daaqa طacma aliimaani man radya biاllahi rabba wbilislaami diina wbimuxamadin rasuula. nebigu calayh الsalaatu wasalaam daaqa طacma aliimaan buu yidhi dhadhanka iimaanka waxaa dhadhamiyey. xadiidkan aynu joognaana wuxuu sheegayaa dhadhankaasi inuu xalaawayay alxuluw wax macaan. idan iimaanku ilaahay rumayntiisu yaqiintaasi hadday qalbiga degto dhadhan bay u leedahay qofka muslimkaa wax u dhigmaa aanu jirin. dhadhan bay u leedahay qofka muslimkaa wax kaloo u dhegdhigmaa aanu jirin. sida cunnadu carabkaaga ugu dhadhanto hadday macaan tahay ayay quluubta dadka mu'miniinta ee dhabtaa u dhadhantaa cibaadada iyo iimaanka iyo ilaahay weynayntiisa iyo cibaadadiisu. si awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ku tilmaamaya inuu iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa dhadhamiyey khaslaadkaasi cidda laga helo. haddaad markaa adigu dhadhankaa weydo naftaada tuhum waxaad weli u baahantahay inaad tarbiya dib isugu noqoto. waxaad u baahantahay inay naftaada dib aada uga jafjafto waxyaabaha u baahan in laga jafo. qofku markuu xanuunsadee caadiga ah afkiisi wuu qadhaadhaadaa dabeetana waxa asiilayaan macaan haddii loo dhiibo ayaanu macaankiisa dhadhamin. qof xanuunsanaya waxaa laga yaabaa dad sokor u dhiibto inaanay wax macaan la dhadhamin. macnuhu ma aha inaanay sokortu macaankii ka tegey ee waxa weeyaan aalatu dawq baa khalkhal ku jira. qalabkaagii wax dhadhamin jiray carabkaagii wax dhadhamin jiray ayaa xanuunka ku dhacay daraaddeed wixii macaanka ahaan macaan u dhadhaminaynin. haddii markaa ay cibaadadu kula macaanaan weydo iimaanku kula macaanaan waayo khalalku wuxuu ka jiraa xaggeennee maaha inaan iimaanku macaanayn. nebigu calayhi الsalaatu wassalaam waa kii xadiidka صaxiixa ku tilmaamayey adduunkiina kan waxaa lay jeclaysiiyaa الnisaءu waطiib wajucilat الsalaatu salaadana waxaa laga yeelay buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ishaydu miday ku doogsato. ishaydu miday ku doogsato ayaa salaadana laga yeelay buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam. walidaalika ayaa maalan salaadoo kale marka dhibi qabsato nebiga calayhi الsalaatu wasalaam idaa xasabahu amru fazaca ila الsalaa arrin hadduu warwargeliyo salaada xaggeeda ayuu carari jiray. ama arixnaa biha yaa bilaalu leeyi macnaheedu waxa weeyaan cibaadaadku iyo iimaanku iyo ilaahay inaad ku xidhnaataa dadkaasi ahlu taqwaa dhadhan bay u leeday. al-unsu billaahi wax u dhigmaa ma jiro. qofku inuu rabbigii weheshado wax u dhigmaa nolosha ma jirto. qofku hadduu rabbigii weheshigiisa uu helo
qalbigiisa xasila adduunkaan warwar ku haynin waxa dhacayaan dhib ku haynin arsaaqda intuu helaabo qanaaco ku qaba adduunyadaynu joognoo dhami qiimo badan uma samaynayso waxaase qiimo u samaynaya rabu الsamaawaati waalardi inuu ku xidhnaado sidaa awgeed tana hal qiso haddaan idiin tilmaamo xadiis aan rajaynayo in abu daawuud ku yaallay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa way dagaal tageen qolaa dagaal la ysku soo helay waa soo noqdeen iyagoo soo socda ayaa nin gaalada ka mid oo malaa dadkii wax ka soo gaadheen ka mid ah ayaa wuxuu ku nadray anoo muslimiinta dhiig ka daadiya mooyaane inaanan hadhin laakiin de waa nin quro oo raadco ah uma badrheeri karo markaa wuxuu eganayaa un cid dagan uun habeenkii muddaa la soo socday markii la seexanayay ayaa laba saxaabi la yidhi gaadh ka qabta idinku dabeetana dadkii uu iska seexday labadii ninee gaadhka hayay ayaa midi kii kale ku yidhi waan yara laamadoodayaaye ee kici haddaad wax dareento muddo markii la joogay bay dareemeen meeshu inay nabad iska tahay kii hore wuu seexday kii dambana salaad buu galay riwaayaadka axaadiista qaar ka mida waxay leeyihiin suuratulkahf buu akhrinayay salaadda isagoo ku jira ayaa ninkii gaalkee raacdada ahaa ee gaadada ahaa ee daba socdaa arkay ninkan taaganee salaadda ku jira iyo dadkii kaloo aan dhaqdhaqaaq ka jirin intuu meel ugu soo gabaday ayuu leebkiisii qaansadiibuu u cabbaystoo gamuun buu ku dhuftay gamuun baa ku dhacay saxaabigii dabeetana wuxuu necbaystay inuu salaaddiisa gooyo dhadhan buu ku haystay ninkii gaalka ahaa haddana kii labaad buu ku kiciyey waa ku dhacay bay yidhaahdaan haddana waa ku kiciyey dhowr leeb markay ku dhacday ayay soo gaadhay xilligii rukuucda wuu rukuucay marka uu dhaqdhaqaaqii ninkii inuu rukuucay dareemay ayuu is yidhi de waa lagugu soo bixiyo gaalkii uu iska tegey dhiiggii ninkan ka dareerayey ayaa qulqulkii wuxuu u galay ninkii jiifay hoostiisa kii baa dhiigga arkay markaa wuu kacay isagoo leh subxaana allah war maxaad ii kicin weyday salaaddii markuu dhammaystay wuxuu yidhi waxaan ku jiray salaad baan tukanayo ilaahay baan la hadlayo waxaan necbaystay inaan munaajaadka rabbi kala gooyaa baan necbaystay yacnii ninkan nabarradu ku dhacayaan ee haddana dhiiggu dareerayo ee taagan mowqifkaasi xarajka ah wuxuu dareemayaa iimaanka dhadhankuu ku haystaa kale macaan nabarradan ku dhacaya walidaalika waa bacdu salaf waxaa la sheegaa adin baa la yidhi baa lagaa qalayaa markaasay yidhahdeen bunji cab bunjigu waa bahalladan la ysku suuxiyo yacni bunjigaa cab waad suuxaysaa waad maandoorsoomaysaa markaasaa qalitaanka lagu bilaabaya wuxuu yidhi oo caqliga ma tegsiiyaa markaasaa la yidhi haa caqligu wuu tegayaa markaasuu yidhi war bunji cabbi maaye salaad baan geliya markaan salaada galo wixii idinka idiin muuqdo sameeya salaad buu xidhay bay yidhahdaan intuu salaadda ku jiraa la qala yacni salaaddaa uu galay dhadhanka iyo macaanka uu ku haystay daraaddeed baa waxaanu dareemaynin birta lagu jarayo xataa culimmadan sayniskee dambe waxyaabay tilmaamaan ay yidhaahdaan maskaxdeennu waxay soo daysaa hormoonno tiro badan oo qaar ka midi ay qofka bini aadamkaa dejiyaan ama suuxiyaan siiba maalan markaad dagaalamayso dee qof istishaan nabarraa kugu dhacaya nabarradaa intaad dagaalka ku jirto o dhan dareemi maysid hadhow marka laydinkala qabto aad fadhiisataa unbaa meel walba ku damqanaysaa oo halkan naa walba kiibaa igu dhuftay baad leedahay markaad dagaalamaysa maxaad ogaan weyday waxay dhahdaan hormoonnay maskaxdu soo daysaa marka ay qaabkaa galayso qofka dejiyo oo sakhraamiyo oo ilowsiiya nabarrada ku dhacaya waxay ugu badan yihin bay dhahaan maalan dumarku markay umulayaan
umusha ilaahay baa ku dhaafiya oo lowla aanay hormoonnadaasi soo da'aynin haweenku inay umulaan way adkaan lahayd saa daraaddeed qofku cibaadada markuu dhadhankeeda helo sideeduu u degaa alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub baa ilaahay tilmaamaya war hooya ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubta ku xasishaa marka waxaan leenahay sida uu nebi moxamed sheegay calayhi الsalaatu wasalaam iimaanku dhadhan buu leeyahy daaqa طacma aliimaan kanna waxaa la yidhi ثalaaثun man kuna saddex ninka ku jira wuxuu helayaa xalaawat اliimaan xadiid kale dhadhan buu leeyahy buu yidhi xadiidkanna wuxuu sheegay dhadhankaasi inuu macaan yahay macaankaa waxaa helaya sifaadkaasi axaadiistu tilmaamayaan ee ay culammadu inoo sharxi doonto ama xadiidkaasi kale ku yaalla man radya biاllahi rabban wbilislaami diina wabimuxamadin nabiya waxaasoo dhan cagsigeeda waxaa la tilmaamaya iimaan la-aantu inay cidhiidhi leeday waman yacshu can dikri الraxmaani ilaahi subxaana wa tacaala waa ka tilmaamaya waman yucrid cidda ka jeesata ilaahay dikrigiisa wuxuu helayaa maxay maciishatan danka nolol cidhiidhiya cidhiidhigu waa wax qalbiga laga dareemo markaa marna qofku macaan buu dhadhaminayaa raaxat lbaal buu helayaa rida nafsi buu helayaa ilaahay u dhowaanshiisiiyuu helayaa marna sakht iyo warwar iyo walbahaar iyo mashaakil ku tiro bata iyo nolosho aan dhadhan u samaynaynin wax kastoo hantiyo maadiya u haysto bini aadamku meeshuu raaxada ka dareemaa waxa gacanta ku jira maaha waa waxa qalbiga ku jira gacanta waxa ku jira kuwa ugu xoolaa badan leh marar badan bay ugu warwar badan yihin dunida dadka istiile la sheega waa tabaqa alwusta iyo wixii ka sarreeya faqradu inta badan isma disho waxaan leenahay markaa iimaanku macaan buu leeyahy macaankaasi inay tafsiiliyaan culimmadaan u daynaya anigu waa u furfurayay une وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين